بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan Soomaali Maxamed meel walba ay joogaan. waxa ka inooga sii socon doona insha Allah gabayadii diiniga ee taxanaha. waxa gabayga maanta leeyahay ayar la tahay noloshii, wuxuuna ka hadlayaa niman waayuhu run u sheegin in ay ayar la tahay noloshu. wuxuuna ku bilaabmay insha Allah sidan: niman ibtilo iyo xanuunka nolosha arag ay ayar la tahay noloshii. niman orod iyo awoodiisu run u sheegin ayay ayar la tahay noloshii. niman aroor waa beri ku gaadhin soo jeed ayay ayar la tahay noloshii. niman wuxuu la anfariiro oo uu la amakaago oo uu la argagaxo arag ayay ayar la tahay noloshii. niman oon iyo gaajo arag ayay ayar la tahay noloshii. niman arsaaqda iyo oonta uu cuno albaab adag ka gelinoo iridaha ayaanka iyo nasiibku ka awdmin ayay ayar la tahay noloshii. niman aqal uu galo oo uu dhaxanta kaga hoydo waayin ayaa ilaaba xaqiiqdo ayar la tahay noloshii. niman aafo iyo dagaal aag uu ka oogan yahay ku ababinoo qaxoonti ayaan qura noqon ayay ayar la tahay noloshii. niman uurka ka ladinoo afkiisu juuq gabinoo ereyadu qalbigiisa cuslaynin edab iyo xishood awgood afka xidhay iyo amuuro waaweyn arag ayay ayar la tahay noloshii. niman aqal fooq ku waabarisan cunto iyo agab iyo weel buuxin ama dhib aamusiin aan arag ayay ayar la tahay noloshii. niman ubadkiisa waxay quutaan u waayin oo iid dhar u iibin kari waayey arag ayay ayar la tahay noloshii. nimuu wakhtigu eryadaa og dhabtoo ajar iyo camal aakhiro urursado dadaalo goorya ayaanoo dulqaadna la imaadee. sideedaba dadaalku ma idlaado ilamaayo iilka lagu dhigo. aan wax ka idhaaho odhaah kolkay nimco agtaada taal iimaan aadan ku darin way ku ambisaayo ibliis weeye shaqadiisa aan alle ka mahadino ayaan iyo habeenba. ragow hoos u eega inta nimco eebbe kugu manaystee ayniga ku riyoodo inay ayaan qura ay helaan. waad mahadsantiin dhammaantiin. waxaan leeyahay marmarka qaar waxa fiican in noloshu kugu adkaato si aad waaye arag u noqoto oo aad wax uga barato. insha Allah walaalayaal, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.